soo aruurta caruurtaada inta xawishay ee kaaga soo aruurtay ina snapchat baraarugayo ilbaxay adigoo afka saa ka siinaya bay kaaga soo aruurta caruurtaadii meel ay ku ogtahay iska ilaahay baan ku dhaartay gurigaaga Nairobi waa la iiga sheekeynay guriga iridiisa hadaa marto saxara sanka kugu dhufanaysa waayo cunugaaga ugu yar fucking 8 months old way saa ugu qorta caruurtaada inay xawisho adiguna ka dhaxniikisa karmeel markaas aniga hees naag gabalkeedu dhacayo xataa ayeeyo u soo heesta aniga heesteed inta ii soo shirtay ilaa fiifa heblaayo na fiifa caruurtaada dheebarkooda naaya na fiifa noloshaada kala dhacsanaya na fiifa you fiifa your life disaster life fiifa your him fiifa your problem naaya fiifa qabyaalada ku qaada kuma dhigto wasakh yahay marka waxa idin sheegaya ilma adeer riyaalo macaano meeshan af Soomaalina waa ku kala harnaaniya adinku gacanna waa ku kala harnay magaalana waa isla deganahay meeshan wax la booteeyo male Mareykan baa ku sheegaya teeda kale anu green card baa haystaa adoo citizen baa tahay Mareykan baa tahay saasay tahay daqsi korkayga saaray inaa saa u qaada lama ogola waayo permanent resident ay wadan don't care wixii dhaxmar laakiin aniga aflagaadada ii geysatay un baa ka hadli karaa iyo dadkii ka dambeeyay gabar yariiso oo meesha ku weyn canabo maalin ay soo caynayso dheeysa hala dilo hala toogto oo gabadhaas hadee maanta dhimato xataa bas alla u dhimato ayada loo qabsan lahaa waxa ogeedeen guuleedsiinba intii bari aflagaadeynaysa BK oo sheekh maxamed hadda isku bixiyay oo wadaad noqday waa ogeedeen intay caayeysay gabadhaas BK intay dhibaato u geysatay intay aflagaadeynaysa intay xataa qof bini aadana hal ceeb qofkii asturo kun ceeb ilaa asturay BK oo nin raga ah codadkii uu WhatsApp ugu soo diray inay gabadha Facebook page soo dhigto waa ogeedeen dhibaatada u geysatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri ummadeyda ii nabadgeli ummadda Ilaahay u nabadgeli halaas laga laayahay gabadhaas maxaa ku soo haray guuleedsiin buu ahaa ninkii caayisay waxa ku xigay ninkii ay nafta u keentay odayga miskiinka dab casar meeqa bariya caayisay gabadha ku dhiganayd boqol marka hadda kiin jaamacaddu ku dhaganaa arkay waa ka soo hadl waxaan ku iri walaalay macaanay fanka qabyaalad ma aha gabadhan ay ku dhagan tahay anay adeerkaya dhalay adigana wiilkan aad u hiilinaysa qabyaalad ba ugu hiilinaysa anba qabyaalad ayada waa ugu hiilin karaa laakiin aduu waxa tahay gudoomiye fan ma tihid you don't have voice codadka xawayaanaadka aad leedahay codadka riyaha aad leedahay codkaaga kale waxa loogu talagalay kaniisadaha muusiga markii fanaanku uu heesayo oo muusiga la shido waxyaabaha ka dhaxyeera ma aragtay that's your voice vocal ma aha cod oo bass ah ma aha what kind of voice is that that's not vocal that's not ma aha cod weyn oo bass ah ma aha tuunka ka haysta anu garan waayay waa qoom soo socdo tuunkoodii baa ka heesaysa marka soo baxday baa nationality-gaaga 7 bilood lagu murmaayo saa u dagaalamayna xiiqnay annaga xabariir waa gabadha haladay ilaahay baan ku dhaartay Ethiopian miya ma Soomaaliba ma Talyaaniga soo qaxa you don't know baa ka dhacday dagaaladan ku galnay baa social media yaala annaga dadka dheena gabadhan waa Soomaali annaga xabariir waa adigoo noloshaas aan kula soo maray maanta naagti aniga idaba mar lahayd oo rag igu soo faylin lahayd miyaa tahay mise naagti aniga idaba istaagi lahayd baa tahay because qofka kuugu dhow tolnimo oo aad talent ka keeni karta ismi naagahan rag baa dhalacaana hodan cabdiraxmaan iyo gabadhan kaleeto ii sheeg laandheeraha ah oo kiin jaamaciyo dad waxa dhalay waa dal waxa weeye boqortooyada kale mid baa idin sheegaya wallahi Soomaaliya waa idin waaninaya special qabiilada gaar biliis waa idin baryayaa laba qof markay isqabato qabiil yaa loo leexin aniga naag baa is haynaa naagtana rag bay ii soo dirsatay xataa ragga uma jawaabaya because waa dhagaxaan raggu dhagaxna aniga uma jawaabo dhagax weliga ay Allah xaafada marka dhagax soo socdo dhagaxo naga joog miyaa la dhaha no guriga laga soo tuura la aado Soomaaliya hadaa xasuustaan dagaalada marka dadka aniga ay caynay commentiga iyo ragga aniga video uga reen karo waxay tahay marka weliga ay Allah 7 qof xataa dagaalo badan aniga ma soo galin agjooli noloshayda inta noola 4 qof baa isdilla gacan isku geysanay haddii hadda idin dhaho weliga ligama guulaysan hadee waa faanaysaa ileediin moogta marka waa ka gudbaya halka marka weliga iyo Allahay haday 4 naag ama 3 naag isugu ka tagaan noloshaada hal aqli weliga samee
naagta aan markii koowaad lambar 1 aa qabsatay commenti taas inta kale ma aragtay dhabarka ka dilaan laakiin taas asiideen maalintii taas gacantaada ka baxsato afar gacmood baa ku 8 waa 4 iyo 4 8 gacmood baa kugu soconaysa laakiin inta labada julbood hoostooda gashato oo timeeda saa gacanta ugu duubato halkaas surka ka qanin taa commented saa marna u jagee marna jilib xabadka oga wad marna surka ka qanin taas le commented inta kale korka ka dilaan umadaas ka qabanaysa ilaahay ma fahamtay marka saasa loo dagaalamo horta aan ku baray daba yaroy waliga dagaal ma aadan galin ani adoo isnaqaana si fiican baa isku naqaana dheer haday noqotan intaas ay leegtahay cabsi haday noqotan wadnaha inta ku leeg wadnaha kan ku leeg I know you very well labadeena si fiican isku naqaana naag aniga igu aadana matiid marka waxba saakay waxa seexatay 8 o'clock waa ogahay waxa soo kacaysa 8 maghribnimo hadda soo kacaysa hadda 8 maghribnimo ay noqotay hadda marka soo kacdo waxaan ugu talagalo live ka xilligan soo gala ma taqaanaa xalay markaad aragtay inaan ku caayo haara taag baa kugu dhacay ma aadan seexan 7 bax oo qaadad ka soo qaadatay University Avenue waad fariisatay waxaad soo qoraysay 7 page sidii baarlamaankii Puntland dawladda dhexe u dhaaranaya looma dhama xal oo dhan ku haysay 29 page baa soo qortay hadala darada fanka tahay waxa tahay waa la yaqaanaa naag waxa tahay 7 habeen si u qayilayso darbigu markay ku soo socday ariya xayta waxa soo socday intay dhaasaas ka siis ariya xayta ariya darbi hawar yar darbiga ma guurooyo mise aniga indahayga waay ma darbiga soo guuray carar ya markaas alsaas lagu dhigi jiray waa isna qanaani adoo marka ina adeeray macaanay gabadhaadan labada lugoodo amoodo laba oday Umar Maxamuud oo geed hoostiis ku sheekaysanaya saasale oo 4 feet ka ah teeda kale waxa arkay dad dhahay jookoray yey ku dilay naagtaas waa geesiyada horta naagtaas number 1 gacantaydaas ay leegtahay iyadoo dhan number 2 na aqoon baa isku leenahay fucking 19 years as naqana yesterday isma baran iska daa ayade gadaasheedan kuwa ayada tol ugu sokay intaan kala soo baxo horteeda ku garaaci jiray aysan ka dhigi jirin you don't know me meesha ay u aragteen aqoon la'aan iigu kindhiman aniga Soomaaliga inta aana baran oo aana hadlinba gacantan ka soo bilaabay hadalka soo moogidin adinku afka ka bilaawdeen hadalka anu gacantan ka bilaabay afka u soo baro moose kadibna runtaan isku sheegayna Minneapolis waa la yaqaanaa magaaladan Minneapolis la dhaho si fiican la isku yaqaanaa shaqada aan ka shaqeeyna waa la yaqaanaa meesha ku taalo dukaamada